knn. koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan. haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane. wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane. intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan. si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar janalkan. aryaadhaha kalamaanay xabad ma ogidiina beriga teendadi cartaan soo xusuusnay eraboorka markii aan tagayaa indhahaygu gow waxay yiraheen madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo dayuurada ka soo degahaya gadaashiisa markaan sii fiiriyana madaxweynihii hore Cabdiqaasim Salaad Xasan aaba daba socdaba asa waxa igu soo dhacday heesti ahayd alool nibiraad ka soo celise Ismaaciil Cumar Geelle warbariga carta isugu tagteen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ahaa Maxamed Ibraahim Cigaal maanta xagee uga soo tageen qowdhanow adduunyada waxa kuugu dambaysa 20 sano ka hore Allahu naxariisto Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal horta nimayo carta waaba maqli jiray Ismaaciil Cumar Geelle lagu naynaasa war adeer Cumar Carta qalbi waa joogaadee war hadda ka hor intaan madaxweynaha Ismaaciil caloosha nibiri ka soo celin ayaa waxa arkay kowdii luuliyo iyo 26kii Juun oo cid soo hadal qaadaysa la arago xataa qolada qowdhan ilowdo iska dhaaftay marka madaxweynaha Ismaaciil baan ku ergaday shilaalka dheer iyo intaan omosta jiirayno intaan halaqa jabadkayga galay jaanta marinayo Jabuuti iyo walaalkan jeclaa ila sii jira jawaab iyo su'aal yaan midnaba layga soo jirin oo Juun iyo Julaay aniga hay jaleecinaan ku horta waagaas al-shabaab ma jireen arbarigaas uurka lagu siday mugayna sheena iyo koonkorin horeeyay ka socdeen oo qaraxay bilaabeen war waqtiga madaxweynaha Ismaaciil iyo Cabdiqaasim waxa kale la socday xasan aadan samatar iyo Axmed Cali Cigaal oo 30 sano ka hor Muqdisho ugu dambeysay war fanaaniinta ka reebin xawaale aadan la socday warnimayo maanta wariyaal waalan ayaa airport ka tagay markay arkeen Ismaaciil Cumar Geelle soo degay oo la yiri waxa la socda madaxweynihii hore Cabdiqaasim Salaad ayaa mid wuxuu yiri maxay uga soo tageen Maxamed Siyaad Barre aryaadaha kaasuma waalan yahay Maxamed Siyaad Allahu naxariiste war mid kale ka sii darnaa markii la yiri xasan aadan samatar iyo Axmed Cali Cigaal baa la socda wuxuu yiri maxay uga soo tageen Tubaac iyo Magol qaaluu inna lillahi allaha naxariista zaman nabigay dhintay maxaa dhow war sanadkan wasiirada iyo wariyaashaba taariikhda dalka ma yaqaanaan aryaadaha heesti Magol berigayba baxayso maanta waa maalin weyne maanta madaxweynahayna maanta madaxiisa raage maanta walaalaha Maxamed nooga liibaan baa qaan jiray heestan shirga ku raac war malaha guduuda carway hayde war farmaajo Ismaaciil Cumar Geelle barbaarta gaashamanay garoonka wax yar kula ciyaareen oo adeer madhaasiga yaqaaneen maya shiribkee yaqaaneen war madaxweynayaasha shacabka soo dhaweeyay dad la soo diyaariyay bay ahaayeen hase yeeshee inta kale dariiqyadu waa ka xirnaayeen suuqana kama aysan soo adeegan hadday sii joogaanna wadooyinku siday u xirnaanayaan marka waxaan ka codsanayaa wafdigu inay degdeg u laabtaan yaan baahay shacabka xaafadaha ku leeyna war shacabku maxay soo adeega waayeen laba bari ka hor warbaahinta sheegaysa inay madaxu imaanayse war waxa la yiraahdaa waa agta ku nool dadkaanuna waxay maalintii soo helaan ayay quutaan marka maxay laba maalin ka hor ku soo adeeganayaan warnamayo shalay talaadii jimcaha dalka New Zealand la yiraahdo masiiba ka dhacday qaraxii Zoobe oo kale miyaa ka dhacay war mashabaabta New Zealand war balaayadu meel kastay joogtaayna dhageysta nin qori weyn wata ayaa masaajid dad muslimiin oo ku dukanay ku soo weeraray kadibna xabadu saf kala maray konton qof dad ka badan baa ku dhintay in kale oo ka sii badan waa ku dhaawacan war ninka markuu muslimiinta leeynayay Facebook live buu ku jiray Facebook live aryaadaha reer galbeedku muga kaasoo kale dad laayo waxay dhihi jireen nin waalan waayo madaxa looga jira kuwa kalena argagaxiso waaye ay isla soo quturaan laakiin shalay waxay qirteen gaal koora muslimka laaya inuu argagaxiso ahay anigu gaal muslim dilay kan nixmaayo weligood bay col ahaayeen balse waxaan ka hurdi waayaa muslimiinta horteena ku leeynaysa dad islaam rumaysan dhigood kuma abiyoodaan aqalada intay ugu galaan kama afduubtaan afduuxuu yaanu nimanku wana laayeen baan ku yiri aryaadaha dadka masaajidka lagu laaya afar kamiduhu Soomaaliyay ahaayeena lay ninka dadka ku laaya masaajidka xildhibaan ku fikiro New Zealand u dhashay shir jaraa'id qabtaya la yiri wuxuu yiri ninka dadka laaya muslimiinta ahay waa saxnay kadibna igaar dhinoo 17 jiraha in xanaaqaya oo kunfool kuuga dhifta bashka aasoo yiri naga hortag wajigaaga weer caanaha ku
labeensadeen aryaa New Zealand maamul goboleed cusub oo nagu soo biiray miya yaase madaxweyne ka dunyaba lama socotid dadka halkaas ku nooli gaalaba ha ahaadeen waa naga damiir fiican yihiin markii dadka muslimiinta la laayay ayay soo baxeen masaajidadana ugu tageen muslimiintii oo dhan waxayna yiraahdeen falka cidda samaysay kuma raacsanin ee si degan u cibaadeysta ciddii wax idin yeeshaanay waxna yeeshay war islaanta ra'iisul wasaaraha ka New Zealand garab way miyaa tiri saaka waxay soo qaaday dharkii gabdhaha muslimiinta ay xiran jireen waxayna tacsi ugu tagtay qoysaskii dadkooda la laayay aryaadhaha naagtaas minay dharkii muslimka gashata ceeb male waxaase u fiican inay muslim noqoto war gabar la yiraahdo Nayla Xasan oo ah taliye ku-xigeenka booliska New Zealand ayaa ka ooyisay weerarkii lagu qaaday masaajidka war anaga waa leenahay gabar taliye ku-xigeen booliska ah qiiradiska daaya hataa qaraxyada kamaada shaanteeda ka dhac war masaajidada ku yaal dalka Mareykanka maanta wixii ka dambeeya ciidana ilaalinaya la yiri baabuurka u soo dhawaadana kala wareeg ayaa la leeyahay yaa ma askarteena koobiyeen warnimada war ma haysaane ra'iisul wasaare Khayre Al-Sayid Ahmed Madoobe inta Khayre ayuu farmaajeeyana nabad iyo nololeyntiina qarku u saaran yahay war risaalada ma gaarto wuxuuna yiri Ahmed Madoobe wajigiisa ka muuqata inaan heshiino sidoo ahaa jiray iyo soo hadda yahay waad aragtaan software-kii miyaa laga bedelay war abdheeda loo diray maya waa la download gareeyay war Al-Sayid Ahmed Madoobe wuxuu yiri madaxweyne farmaajo minankiisa ugu tagaya warnimada intuu socday kulankii Ahmed Madoobe iyo Khayre Ahmed Madoobe wuxuu yiri xarfaanay shaxda aan wax ka bedelno difaac baan ku jirnaaye aan weerar tagno hooy lama go'le 4-3-3 ma ciyaareen arada wariyaashii la socday wafdiga Khayre waxay dhaheen Kismaayo waxaa ka jira nabad bilaa nolol Muqdishona waxaa ka jirto nolol bilaa nabad intood way Muqdisho nabad iyo nolol ka talisa hooy aniga yoonkaanayti markii la wafdiga imaahay oo meel iyo mar aan way minkeen ku noqday bacdeen TV-ga iska daartay TV-ga oo dawladda us naftirkiisa kala warmaay qoraalka meeha u fuula iyo muuqaalkiisi lama kala ahaayeen bacdeen airportkii iyo muuqaalkii iyo wafdiga imaanay aan ka dayay mugta meehan waxa ugu qornaa aas marxuun xoosha geeriyooday meehana lagu aasa waxaasa ugu taalay war wafdi baa soo degaya ma murugay noqotay ma fartaa uga dhacday yaa balana madaxda soo dhaweynay iyo meed la aasayna maxaa iska galayne warnimada aniga waxaan fahmi waayay war lagu soo qoray Facebook-ga booliska hodan waxaana lagu yiraahday tartanka aad la gasho dadka ka hooseeya hoos ayuu ku dhigaa balse tartanka aad la gasho dadka ka sareeya sare ayuu ku qaadaa markii nimayo boolis amni ka hadlaya la arki jiray boolis tartamayaan la yaabay aryaadaha warka xigmadiisa ma fahmina taliyaha iyo ku-xigeenka goorba iskhilaafsan hooy ama ciyaalka xaafadda adminka yihiin wadar qaatilo qoondaysatay u qasqaasante allow qaadiro qool furo bulshada war islaamka jambiyanka waa dhacnu kalood meesha war meeyay qarankii Soomaaliland aryaadaha madaxda timid waxay tiri ma hadasho madaxdu waayahan war yaa madaxweynaha Jabuuti soo dhaweeyay aryaadaha abaalo nugu leeyahay hal soo dhaweeyay war yaa waa ehelkan naga taga Allah idin ilaaliye